Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Adduunyada waa daaru mumar, waa meel la maro, waa meel ay qof kasto oo marayo. Waad dhalatay, dabadeedna maro yaryar baa lagugu duuduubay. Markaasaa la yiraahday reerkii wiil baa ku soo biiray ama dumar baa ku soo biiray. Berrina waad baxaysaa. Inta maro yaryar lagugu duuduubo ayaa la leeyahay waa meeday xabaashigeeya. Adigoo qaawan maro yar lagugu duuduubay baad adduunyadii timaaday. Adigoo haddana qaawan oo mar kale lagu raacay ayaad adduunyadii ka baxday. Marka adduunyadu waa daaru mumar, waa meel la maro, maaha meel la joogo. Waa xaqiiqo, maalin waa lagu qaaday, waxaana ka dambeeya buu Ilaahay subxaanahu wa tacaala leeyahay la kulanka Alle, in uu qof walba la kulmi doono Rabbigiis, in la xisaabin doono, in ay janno iyo naar ay ka dambeyso. Markaasuu leeyahay Rabbi: innahum yarawnahu baciida wa naraahu qariiba. Saa awgeed Ilaahay subxaanahu wa tacaala sigoo muuminiinta la hadlaya buu wuxuu yiri: alam ya'ni liladiina aamanuu an takhshaca quluubuhum lidikri illaah wamaa nazala min alxaq walaa yakuunuu kaladiina uutuu lkitaaba min qablu fadaala calayhim alamada faqasat quluubuhum wakathiirun minhum faasiquun. Ilaahay wuxuu leeyahay miyaynan gaarin inay mu'miniinta u khushuuco dikriga Ilaahay oo qalbigooda khushuuc daradiis dikriga Ilaahay subxaanahu wa tacaala markuu maqlo oo la khushuuco iyo waxa xaqa ah ee lagu soo dejiyay kitaabka Qur'aanka. Waqti ay waantoobaan miyaynan gaarin buu Ilaahay subxaanahu wa tacaala leeyahay. ayuhal axibba, waxaad maanta qaban karto ayaad beri u calaacali. Sidaa daraaddeed maanta inaad u diyaar garowdaa ayaa habboon. Beri markaad geeriyooto Rabbi rajacun baa badan doonta. Ilaahu dib loo celi, Ilaahu jaanisna sii. Laakiin qofka hadduu nolosha si xaqiiq ah oo u arko oo ogaado inuu beri noolaanayo iyo inuu noolaalin inuusan ogeyn, oo waa jaanis oo maantaysto wayaan, waa inuuna ka faa'iidaysto. Inta badan dadku wuxuu dantiisa gartaa markuusan waxba ka qaban karin hawsha, oo waxba auna ka qaban karin. Maalmahaaga hore kama gedisan maalmahaaga dambe. Kuwaad shalay soo martay iyo kuwa haray waan isku mid. Maanta haddaad shaqaysan kari weydo, birina way adagtahay inaad shaqaysato. Bal mar kasta ay kuu kordho in uu kuu kordhayso caajis iyo wahsi iyo daal. walidaalika buu Nabi Maxamed sallallahu alayhi wasallam siguu saxaabi waaninayo buu wuxuu yiri 5 ka faa'iideyso intaysan 5 ku iman. Dhallinyarnimadaada ka faa'iideyso intaadan gaboobin. Caafimaadkaaga ka faa'iideyso intaadan bukoonin. Waxayntaada ama qaninimadaada ka faa'iideyso intaadan sabool noqon ama aan faqri aadan noqon. Inta badan dadku markuu xoolo dhaafo buu wuxuu yiraahdaa maxaan intaas u baxsay, maxaan alaas u sameeyay. Firaaqadaada ka faa'iideyso buu Nabiga leeyahay intaadan mashquulin. Dhallinyarada inta badan waxay yiraahdaan intee firaaqada ku soo dilna. Waa cimrigiisii qayb ka mid ah buu wuxuu leeyahay halkeen ku tuura. Warba maanta ka waran haddii lagu dhihi lahay inta mar filin fiirsanaysay, inta mara waxyaabaha yacni fadhi ku dirirka waday intaasoo sanay noqotay, waa in cimrigaaga laga jaraa maadan aqbasheen. Laakiin markay haysatid maxaa samaynaysaa? waad seerinaysaa. Ogow cimrigaaga haaf ka mid ayaad waxaad leedahay halkeen ku tuura cimrigii intaana waxaan ku qabta leeyahay. Iska dhaaf inuu firaaqadii ka faa'iideeyay meel ku bixiyo leeyahay. Ogowne markastay kuu kordho in ay firaaqadaada ay yaraanayso, waayo xiriirka bulshadaada ayaa badanaya.
inta badan dadka waaweyn maxay dhahaan waryaa cimriga ii badiyo 24 saac ayaa ku yaraato, adigana waxaad leedahay cimrigayga halkan ku dilay. intaad nooshahay ka faa'iideyso intaada dhiman buu leeyahay nabiga calayhi salaatu wasalaam. kuwaan iimaanka laga helayo biri ka fikir buu ilaahay subxaanahu wa tacaala leeyahay. aakhiro waxaad geysatay kaa eeg buu ku leeyahay ilaahay subxaanahu wa tacaala. intaasaynu ku egtahay insha allah. qayb labaadna waa kasoo samayn doonaa. asalaamu calaykum waraxmatullah.